Xariif magaalo aan caadi ahayn. Bartamihii Sebteembar ee 2017 waxaa jiray kulan aad muhiim u ahaa oo uu la lahaa nin sheegay inuu yahay amiirka boqortooyada ee reer Sacuud oo magaciisu la oran jiray Prince Khalid. Kulankaas ayaa ku saabsanaa iibka saamiyo qiimahoodu gaarayay 440 milyan oo loogu yeeshay hotelka caanka ah ee Fantula oo ku yaal Miami Beach, Florida. Heshiiska ayaa lagu waday in lagu soo gabagabeeyo isla hotelkaas, iyada uu goobjoog ka yahay mulkiilaha hotelka Fontainebleau. Kani waa Jeffrey Sofer oo ahaa maalqabeen ka shaqeeya dhismaha guryaha ama real estate-ka, isla markaana degan Miami. Si kastaba ha ahaatee, Jeffrey Sofer wuxuu muujiyay walaac badan, isagoo sheegay in ganacsigu uu wajahayo dhibaatooyin dhaqaale, isla markaana kaliya iibsashada saamiyo aysan ku filnayn in lagu soo nooleeyo hotelka. Amiirkii ayaa ugu jawaabay, "Ma ahan kaliya 440 milyan oo maalgelin. Annaga ka boqortooyo ahaan tobanaan sano kama fikirno ee jiilalka ayaan maalgelinaa." Markii Jeffrey uu arkay kalsoonida iyo saraynta amiirka ka muuqatay, wuxuu oggolaaday heshiiska hordhaca ah. Amiirka iyo ilaaladiisa ayaana halkaas ka tegay, laakiin ninka saas u hadlayay oo amiirka aad moodo, Prince Khalid bin Alis, wuxuu ahaa xariif magaalo oo xirfad u yeeshay khiyaanada noocan ah. Magaciisu dhabta ahaa Anthony, kaasoo iska dhigay amiir reer Sacuudi ah. Kalsoonidiisa, qaabka uu labisan jiray, iyo nolosha aan caadiga ahayn ee uu ku soo bandhigi jiray waxay ahaayeen kuwo la rumaysan karo, xitaa kuwa ugu shakiga badan. Taasi waxay ka dhigtay in maalqabeenno iyo bangiyo badan ay aaminaan fikradihiisa, taasoo suurtagal ka dhigtay in amiirkii khiyaanada uu xado 100 milyan oo dollar, isla markaana uu ka cararo FBI-da muddo ka badan 30 sano. Warkaan kuu bilaabay, balse ka hor waa inuu muhiim subscribe iyo like-taada. Taasi waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan soo badino muuqaalka. Waayahay, dhammaadkii 1997, Prince Khalid oo magaciisu ahaa Anthony ayaa loo waday xabsi federaal oo ku yaal Florida, dambiyo la xiriira xatooyo dhaqaale. Balse u fiirso ficilka uu sameeyo. Inta lagu jiray jidka xabsiga, wuxuu weydiistay ilaaladii inay hal mar geeyaan xafiiska American Express. Markii gaariga la istaajiyeyna, ninka iska dhigayay amiirka gudaha ayuu u galay xafiiska. Wuxuu bilaabay inuu muujiyo inuu ooyi rabo, isagoo leh, "Magacaygu waa Prince Khalid bin Alis. Waxaan lumiyay kaarkii American Express-ka. Haddii isla markiiba aan la ii bedelinna, aabahayga boqorka ahaa aad ayuu uga caroon doonaa." Shaqaalaha xafiisku waxay ka shakiyeen inuu yahay amiirkii dhabta ahaa, laakiin mid ka mid ah shaqaalaha ayaa ku shartiyay inuu ka jawaabo 2 su'aalood oo ku saabsan labadii iibsasho ee ugu dambeeyay ee uu kaarka ku sameeyay. Isla markiina wuxuuba ka jawaabay 2dii su'aal. Markaasna bangiga ayaa u qaatay inuu yahay amiirkii dhabta ahaa. Saacad gudaheedna waxaa loo sameeyay American Express Platinum kaar cusub oo leh lacag xadkeedu dhan yahay 200 milyan oo dollar. Amiirka beenta ah wuxuu helay kaarkiisa isagoo faraxsan, iyadoo mid ka mid ah shaqaaluhu ku yiri, "Had iyo jeer waa sharaf inaan la macaamilno boqortooyadaada." Markaas ayuu ka baxay xafiiska. 2dii nin ee gaariga ku sugnaa ma ahayn booliis ama FBI. Waxay ahaayeen dadka qaabilsan damaanadda, kuwaasoo u waday xabsi kadib markii uu ku guuldareystay inuu bixiyo lacagtii damaanadda waqtigii loogu talagalay. Laakiin hadda uu haysto 200 milyan, wuxuu si fudud ugu sheegay 2da nin inay dib ugu noqdaan xafiiskooda si uu lacagta u bixiyo. Si 200 milyan oo dollar u helo, ma fududayn inuu bangiga galo una weydiisto 200 milyan. Anthony wuxuu magacan beenta ah watay ku dhawaad 20 sano, isagoo qaladaad badan galay, dhowr jeerna la xiray. Markii uu jiray 17 sano, Anthony wuxuu isaga tegay gurigooda, wuxuuna u guuray Los Angeles, California. Halkaas ayuu iskaga dhigay Prince Khalid bin Alis. Wuxuu qolka kireystay Wilshire Hotel, qiimihiisu ahaa $3,500 oo ay ku jiraan cunto iyo cabitaan. Wuxuu joogay hotelka 4 maalmood. Markii ay hubintu weydiiyeen halkuu tegi doono, wuxuu u sheegay inuu u baxay socod una soo laaban doono. Wuxuuna maamulka u sheegay in aabihiis uu bixin doono qarashaadka oo ugu imaan doono hotelka dhowaan. Saacado badan ayaa la sugayay, laakiin ma imaan amiirkii iyo xitaa lacagtii midna. Isla maalintaas ayuu aaday Rodeo Drive. Halkaas ayuu ka qaatay 2 boorso oo luus ah, isagoo dukaanka u sheegay in lacagtu ugu diri doono hab wire transfer ah, ayna dib ugu soo dhici doonto. Dabcan, ninkan waa amiir, cidna ka shakin mayso. Taasi waxay ahayd bilowgii khiyaanooyinkiisii waaweynaa. Isaga xitaa ma ogeyn in arrinta sii socon doonto, isagoo kaliya sheeganaya inuu yahay amiir reer Sacuudi. Maalmo yar kadibna wuxuu ku noqday isla hotelkii kow. Halkaas ayaana lagu xiray. Markii laga soo saaray qolkiisa hotelka, wuxuu ku qaylinayay, "Anigu waxaan ahay amiirkii dhabta ahaa. Qalad baa dhacay. Lacagtu kaliya waa ay soo daaday. Maxaa sidan layla dhaqmayaa?" Sidaas ayaana lagu xiray amiirkii beenta ahaa, isagoo ku jiray maalmo.
kadibna deysmo shuruudaysan ayaa lagu daayay. Degdeg ayuu uga baxay Los Angeles wuxuuna u guuray San Francisco isagoo ka cabsi qabay in mar kale la qabto. San Francisco ayuu ka degay hotel kale oo 5 star ah oo la yiraahdo Bill Kingdom, halkaasoo qarashkiisu gaaray ku dhawaad $15,000. haddana mar kale ayaa la xiray. markaan dembiga u galay wuxuu ahaa khiyaano kaarka deynta, isagoo adeegsanaya magaca been abuurka ah Prince Khalid bin Alto. wuxuu ku jiray 2 bilood xabsi maxalli ah, kadibna waaba la sii daayay. markii uu ka baxayna San Francisco wuxuu si toos ah ugu baxsaday Hawaii. wuxuu fahmay in joogitaanka hoteelada raaxada aysan dhab ahaantii ka dhigi doonin qof maalqabeen ah. waxay kaliya siin kartaa dareen raaxo oo ku meel gaar ah, balse waxay ahayd khatar. sidaas darteedna wuxuu go'aansaday in la gaaray waqtigii uu samayn lahaa lacag dhab ah sida ay sameeyaan boqorada reer Sacuud. intii uu ku noolaa Hawaii, Anthony wuxuu bartay suuqyada maaliyadda, sida saamiyadu u shaqeeyaan, fahamka sharciyada dhaqaale iyo meelaha ka bannaan. si degdeg ah ayuu u diyaariyey liis dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan ganacsiyada ay boqortooyada reer Sacuudi leedahay. hal magac ayaa isla markiiba maskaxdiisa kusoo dhacay: Saudi Aramco, ama shirkadda shidaalka ee Carabta ama Sacuudi Carabiya. wuxuu arkay inay tahay meesha ugu habboon ee uu ku khiyaani karo malaayiin dollar. wuxuu sameeyey dukumenti been abuur ah oo u muuqda sidii saamiyo dhab ah oo ka tirsan Saudi Aramco. markii uu ku qancay muuqaalka, wuxuu bilaabay inuu la falgalo martida kale ee ku sugnaa hotel 5 star ah. waqti ayuu la qaadan jiray si uu saaxiibtinimo ugu muujiyo, kalsooni ugu kasbado ka hor inta uusan adeegsan kaarka boqortooyada. dhammaadkii 1992 ciidihii Kirismaska, Anthony wuxuu lamaane ku yiri oo taajiriin ah, waxaan idin hayaa hadiyad. sidee baad u dareemi lahaydeen haddii aad si lama filaan ah u heshaan saamiyo ka tirsan shirkadda saliidda ee uu aabahay si gaar ah u leeyahay, oo qiimahoodu yahay $8,500 midkiiba, iyo dhul saliid leh oo ku yaal Sacuudi Carabiya? haddii aad xiiseynaysaan oo aad ku qanacdeen, waan idinku dari karaa. lamaanihii oo horeyba u cabsanaa oo xamaasad badan dareemayay ayaa isla markiiba u qoray jeeg $8,500 ah kuna wareejiyay amiirka, iyaga oo beddelkaas uu siiyey 2 waraaqadood oo kombiyuutarku soo diyaariyey oo aan wax qiimaha lahayn, iyo xitaa dhul been ah oo aanan jirin. maalmo yar kadib, amiirka been abuurka ahaa ayaa isagoo walaacsan la xiriiray lamaane kale oo hotel joogay, dabcan oo jeebweynayaal ah. wuxuu u sheegay inuu yahay amiirka boqortooyada reer Sacuud, balse uu ka lumay kaarkiisii deynta meel xeebta ah. sidaas darteedna wuxuu ka codsaday inay ka bixiyaan qarashaadkii hotelka iyo cuntada oo gaaraya $21,000, balse wuxuu u ballan qaaday inuu bedeli doono saamiyo badan oo ka tirsan shirkadda saliidda ee aabihiis uu leeyahay, iyo dhul ballaaran oo saliid leh oo ku yaal Sacuudi Carabiya. lamaanihii way aamineen khiyaanadiisa, waxayna bixiyeen dhammaan qarashaadkii hotelka. wixii intaas ka dambeeyey, saaxiibayaal, ninkii Anthony ahaa wuxuu bilaabay in sheegashada dhabta ah ee amiirka ay runtii siin karto lacag aad u badan, islamarkaana khiyaanaynta dadka maalqabeenka ah ee damaca badan ay aad uga sahlan tahay sida uu filanayay. amiirka been abuurka ahaa wuxuu dib ugu noqday gudaha Mareykanka, balse markii uu isku dayay inuu isla saamiyadaas ka iibiyo nin maalqabeen oo ku sugan Miami, ninkaas ayaa khiyaanada ka gartay, wuxuuna wacay booliiska. markaas ayaa amiirka la xiray mar kale. dembiguna wuxuu ahaa khiyaano maaliyadeed. intii uu xabsiga ku jiray, wuxuu la xiriiray qareen ku sugan Miami oo lagu magacaabo Oscar. wuxuu u sheegay in magaciisu yahay Prince Khalid bin Alto, wuxuuna qirtay inuu qaladaad sameeyey oo uu dib u dhigay lacag bixinta kadib markii uu ku xadgudbay qarashaadkii dukaamaysiga, balse uusan marnaba damacsanayn inuu dhaco hoteelada ama dukaamada. Oscar wuxuu aaminay sheekadiisa, wuxuuna weydiiyey waxa uu ka rabo. Anthony wuxuu ugu jawaabay, haddii aad iga soo bixiso xabsiga, waxaad ku guuleysan doontaa raalinimada boqorka. yaa og, waxaa laga yaabaa inaad noqoto mid ka mid ah qareenada ugu weyn ee ka shaqeeya kiiska boqortooyada. Oscar wuxuu bilaabay inuu ka fikiro, haddii ninka xabsiga ku jira uu run ahaantii yahay amiir reer Sacuud, fursaddani waxay noloshiisa u noqon kartaa mid beddesha. sidaas darteed, Oscar wuxuu u yeeray 2 nin oo kala ah Tomo Connell iyo Francisco Barty si ay u bixiyaan damaanad dhan $46,000 si amiirka looga soo daayo xabsiga. 2 nin waxay tageen xabsiga, foomamkii ayay buuxiyeen, halkaasna amiirkii waa laga sii daayay. laakiin markaan rag iyo Oscar waxay si toos ah ugu kaxeeyeen xafiiskooda, waxayna sugeen lacagtii $46,000 inay toos uga timaado boqortooyada Sacuudiga.
saacada ayaa kasoo wareegtay, laakiin lacagtii ma imaan. Mid ka mid ah ragga ayaa u sheegay Anthony, dhegeyso Amiir, lacagtu weli lama soo dirin, waynan ku celinaa xabsiga. Waxay qabsadeen amiirkii oo dib ugu wadeen xabsiga federaalka, laakiin markaana Anthony wuxuu go'aansaday inuusan dib ugu noqonin xabsiga. Wuxuu weydiistay labada nin inay u kaxeeyaan xafiiska American Express, kaasoo ku yaalay waddadii loo socday ee xabsiga. Halkaas ayuu si toos ah u galay, isagoo ku dhawaaday inuu ooyo. Wuxuuna sheegay in magaciisu yahay Prince Khalid bin Alto, isla markaana uu rabo in Platinum kaarkiisa si degdeg ah loogu beddelo maxaa yeelay boqorka aad buu uga cadhoon lahaa haddii amiirka aan la tixgelin. Markii la weydiiyey 2 su'aalood oo ku saabsan labadii iibsasho ugu dambeeyay ee uu ku isticmaalay kaarka, si sax ah ayuu uga jawaabay labadaba. Bangiguna wuxuu rumaystay inuu yahay amiirka dhabta, isla markiina waxay siiyeen Platinum kaar cusub oo leh 200 milyan oo credit line ah. Amiirka iyo labadii nin waxay dib ugu noqdeen xafiiska, wuxuuna bixiyay lacagtii damaanadda. Amiirkiina sidaas ayaaba lagu sii daayay. Kaliya 2 jawaab oo sax ah, aqoonsi been abuur ah oo boqortooyada ah, iyo hal nin oo xirfadda xariif magaalnimada ah oo xabsi loo waday ayaa si lama filaan ah ku noqday nin mudan $100 milyan. Wuxuu iibsaday gaari aan caadi ahayn, wuxuuna ku laabtay shopping spree kale, isagoo jeebkiisa ku sita 200 milyan. Markii uu helay kaarka cusub iyo lacagtii weyneyd, wuxuu bilaabay inuu iibiyo waxyaabo kale. Wuxuu gatay 2 saacadood oo dahab ah, Rolex, faraanti dahab iyo diamond ka samaysan oo ay ku jiraan emeralds ama dhagxaanta qaaliga ah, silsilado dahab oo fara badan, iyo fargallo waaweyn oo diamond keliya ah. Markii uu dhammaan waxyaabihii gacanta ku dhigay, wuxuu u laabtay magaaladiisa, halkaas oo uu ka shaqaaleysiiyey gabar dhalinyaro ah oo la yiraahdo Jessica, oo noqotay xogeyntiisa khaaska ah. Jessica waxay la socotay mar kasta oo amiirku tago goob cusub, hoteelada, kalaabiyada iyo xafladaha gaarka ah, si dadka deegaanka u ogaadaan in amiir cusub uu magaalada yimi. Laakiin toddobaadyo gudahood, waaxda khiyaanada ee American Express ayaa ogaatay beentiisa, waxayna xireen kaarkii. Booliiskana si dhaqso ah ay ugu wargeliyeen in la qabto amiirka been abuurka ah. Labadii nin ee damaanadda ka bixiyay ayaa ku qabtay hotel ku yaala New York, waxayna si toos ah ugu kaxeeyeen garoonka diyaaradaha LaGuardia si loogu celiyo xabsiga. Laakiin garoonka dhexdiisa ka hor inta aanu duulimaadku bilaaban, Anthony wuxuu bilaabay inuu qayliyo isagoo leh, waa lay afduubanayaa. Haddii muwaadiniintaydii daacadda ahayd ay halkan joogaan, fadlan la xiriira safaaradda iyo CNN. Amniga garoonka ayaa markiiba qabtay 2 nin oo loo maleeyay inay afduub geysan rabaan. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibayaal, markii ay muujiyeen waraaqihii sharciyeysnaa ee ku saabsanaa inay dib ugu celinayaan tuug been abuura xabsiga, waa loo fasaxay inay kaxeeyaan oo waa loo sii daayay. Hase yeeshee, waxay noqotay mid halis ah in duulimaad lagu qaado, sidaas darteedna waxay kireysteen gaari qaas ah, waxayna ku rideen Anthony boorsada dambe ee gaariga, waxayna 24 saac gudahood u kaxeeyeen dhanka Miami. Meel yar oo truck stop ah ayay baakimeen si uu biyo iyo cunto u qaato. Halkaas ayuu Anthony ku qirtay inuusan marnaba amiir ahayn, balse uu keliya jilayay masrax weyn oo been abuur ah. Mid ka mid ah nimankii ayaa weydiiyey, sidee baad ku xaday 200 milyan oo American Express ah hal saac gudaheed? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan iibsaday oo aan sii watay 2 boorsadood oo Rolex ah oo midkiiba $22,000 ah. Waxaana toos u siiyey 2 shaqaale oo ka shaqeeya American Express si ay iigu sheegaan jawaabaha su'aalaha la weydiin doono. Wax walba hore ayaan u qorsheeyay, ayuu yiri. Markii la geeyay Miami, amiirka waxaa loo diray xabsi sanado badan. Dembiguna wuxuu ahaa khiyaanooyinka kaararka deynta iyo aqoonsi been abuur ah. Dhammaan dadka waxay daalaceen oo qoreen wargeysyada ninkan la magac baxay $1 Million Nobody, oo micnaheedu yahay nin aan wax qiimaha lahayn oo markasta lacag malaayiin ah ka xada dadka. Waxaa la xiray in ka badan 11 jeer, marar qaarkoodna dhowr maalmood, marar qaarkood dhowr sano. Laakiin Anthony waxaasoo dhan cashirka ma baran. Markii ugu dambeysay ee la sii daayay waxay ahayd 2011. Wuxuu markaas fahmay inuusan keligii ku noqon karin amiir run ah, wuxuuna u baahday koox, qof xiriir la leh dadka caanka ah ee lacagta badan leh. Nasiib wanaag wuxuu helay qof. Wuxuu ahaa Carl Martin Williamson, nin British ah oo 51 jir ah oo sheegtay inuu yahay maamule hantida iyo maalgashiga, isla markaana xiriir la leh dadka ugu lacagta badan dunida. Williamson run ahaantii wuxuu lahaa waayo-aragnimo lacagta waaweyn iyo lacagaha yaryar, wuxuuna wax badan ka ogaa suuqa maalgashiga. Sanadii 2015, Williamson wuxuu markii ugu horeysay la kulmay amiirka Anthony, wuxuuna tusay akoon bangi oo ka tarjumayay inuu ku jiro in ka badan $600 milyan. Taasina waxay Williamson ku qancisay in si degdeg ah ay saaxiibo noqdaan. Markaas ayaa Anthony qirtay inuusan garanayn
sida loo soo jiito maalqabeennada waaweyn si uu u noqdo bilyaneer dhab ah. Williamson wuxuu ugu jawaabay, haddii aad rabto inaad u muuqato sifo sharci ah, kalsooni badan kasbatid, waxaad u baahan tahay 3 arrimood. 1. Shirkad maalgashi oo u muuqata inay malaayiin samayso sanad kasta. Guri 5 star oo ay ku nool yihiin dadka lacagta badan. Qancinta bulshada iyo muuqaal taajirnimo si aad u muujiso inaad lacag leedahay. Labaduba waxay abuureen shirkad la yiraahdo Martin Williamson International, waxayna ku dhawaaqeen furitaankeeda bishii July 2015. Waxay kireysteen guryaha qaaliga ah ee ku yaal Fisher Island, Miami, waxayna bilaabeen inay muujiyaan hantida amiirka, Ferrariyo, Rolls iyo xaflado joogto ah. Dabcan amiirka wuxuu mar walba wataa yar oo ku qaadan jiray boorso luus ah oo qaali ah. Waxyaabaha kale ay muuqaalkooda ku muujin jireen xoghayn qaas ah iyo waardiyaal si uu u muuqdo boqor dhab ah. Williamson xitaa wuxuu eBay ka soo iibsaday Blade, gaariga diblomaasiyadeed oo been abuur ah, si uu sii xoojiyo muuqaalka boqortooyada. Gudaha social media waxay markasta soo dhigi jireen Instagram-kooda Prince Dubai 07, sawiro eygooda, gabaaridooda qaaliga ah, saacadaha Rolex-ka dahabka ah, lacag fara badan iyo weliba Rolex dul saaran lacagta. Markii dadka caalamka ay arkeen nolol boqortooyo u muuqata oo uu leeyahay Anthony iyo xiriirada dhabta ah ee Williamson, waxay abuureen isku daryo hagaagsan oo soo jiitay maalqabeenno badan si ay u maalgashadaan shirkadooda. Williamson wuxuu la xiriiray bangi maalgashi oo London ku yaal, wuxuuna weydiistay inay siiso $150,000. Waxay ku bixiyeen daqiiqado gudahood maxaa yeelay waxay ku kalsoonayd Williamson. Sidoo kalena waxay fahamtay in heshiis lala galo boqortooyada Sacuudigu uu yahay arrin ka duwan ganacsiga caadiga ah. Sidaas ayuuna bangigaas maalgashigu u furay irid cusub, maadaama maalqabeenno kale oo badan ay xiiso u muujiyeen ganacsiga amiirka. Maalmo yar gudahoodna waxay ururiyeen in ka badan $8 milyan oo maalgashi ah, iyagoo ku magacaabay inuu yahay qayb ka mid ah IPO been abuur ah ama Initial Public Offering oo Sacuudi Aramco ay leedahay. Williamson wuxuu sii adkeeyay muuqaalka hantida beenta ah ee amiirka, isagoo sameeyay warbixin maaliyadeed been abuur ah oo muujinaysa in akoonka bangigiisa ku jiro in ka badan $2 bilyan. Arrintan waxay soo jiidatay maalqabeen kale oo Dutch ah, kaasoo ugu deeqay $5 milyan si uu u muujiyo daacadnimadiisa iyo kalsoonida amiirka. Mana aha oo keliya inuu lacagta bixiyay, balse wuxuu sidoo kale siiyay Aston Martin qaali ah iyo saacado Rolex ah oo dhowr ah si uu ixtiraamkiisa u muujiyo. Laakiin amiirka been abuurta ah wuxuu indho-la'aan ku dhex dabaashay dahabka, lacagta iyo raaxada. Qaladaad taxane ah ayuu galay, kuwaasoo noqday sababtii keentay hoos u dhiciisii ugu dambeeyay. Sebtembar 2017, maalqabeen caan ah oo fadhigiisu yahay Miami, Jeffrey Sofer, ayaa wacay iyada oo loo sii marayo bangiga maalgashiga ee London oo hore u aaminay amiirka. Waxaana loo sheegay in amiirku doonayo inuu iibsado 30% saamiga Fontainebleau Hotel, qiimihiisuna yahay $440 milyan. Sofer oo ogaa in hotelku deymo ku jiro, isla markiiba oggolaaday inuu la kulmo amiirka. Amiirka oo ay weheliyaan Williamson, bangigii London iyo sekretariga, ayaa ka soo baxay penthouse-kii Fisher Island kuna aaday kulankii lagu qabtay Fontainebleau, Miami Beach. Si sharaf leh ayaana loogu soo dhaweeyay, waxayna fariisteen meel gaar ah. Dhowr daqiiqo kadibna Sofer ayaa yimi, waxaana bilaabmay dood adag oo ku saabsan maalgashiga. Amiirka wuxuu ku adkaystay inuu yahay dhaxal sugi toos ah oo boqortooyada reer Sacuudi ah, isla markaana aysan jirin wax walwal ah oo ku saabsan deynta hotelka. Laakiin Jeffrey Sofer wuxuu bilaabay inuu dareemo waxyaabo aan caadi ahayn. Amiirkan wuxuu lahaa English American oo fasiix ah oo hagaagsan, wax raad oo af Carabi ahna kama muuqan. Champagne. Intii doodu socotay, amiirku wuxuu si qalad ah u qaaday galaas champagne ah. Sofer wuxuu is weydiiyey, sidee buu amiir muslim ah oo Sacuudi ah u cabi karaa khamri, weliba meel dadweyne? Shaki ayaa galay Sofer, laakiin dad badan oo goobta joogay darteed wuxuu iska dhigay inuusan arrinta dareemin. Kulanku si wanaagsan ayuu ku dhammaaday, amiirka iyo kooxdiisuna way tageen. Si kastaba ha ahaatee, Sofer ma qancin, wuxuuna isweydiinayay, waa maxay ninkan qaaliga ah ee xardhan dahabka iyo kooxdan ee ku wareegsan? Markaas ayuu shaqaaleysiiyey baarayaal gaar ah si ay u eegaan asalka amiirka. Maalmo kadibna, Sofer wuxuu wacay amiirka, isagoo ku casuumay casho gaar ah oo ka dhici doonta Aspen, Colorado, si ay uga sii hadlaan heshiiska hotelka. Amiirka iyo kooxdiisuna waxay u duuleen Aspen, halkaasoo ay ku yeesheen casho qaas ah. Markii cuntadii la dalbanayay, amiirka waxaa la weydiiyey waxa uu doonayo. Jawaabtiisu waxay ahayd, One prosciutto, please. waa hilib doofaar oo la qalajiyey. Sofer markiiba wuu fahmay in amiirkan uu yahay been, maxaa yeelay Muslim dhab ah ma cuno hilibka doofaarka.
mana cabo khamriga. Inkastoo uu qariyay shakigiisa, markii ay dib ugu laabteen Miami, wuxuu si rasmi ah u bilaabay baaritaan buuxa, wuxuuna wargeliyay hay-adaha dowladda. Markii amiirka maqlay in Sauveur bilaabay baaritaan, cabsi weyn ayaa soo wajahday, wuxuuna u baxsaday Paris si uu ugu dhuunto xaqiiqada. Laakiin markii uu ku soo noqday Mareykanka maalmo kadib, FBI-da ayaa garoonka diyaaradaha ku sugayayba, isla markiina waa la xiray. Sheekadii Prince Dubai ee been abuurka ahayd halkaas ayay ku dhammaatay. Anthony waxaa lagu soo oogay dacwado waaweyn oo ay ka mid ahaayeen khiyaanada kaararka deynta, xatooyo weyn, shirqool lagu sameeyay khiyaano internet, aqoonsi been abuur ah, iyo dambiyo kale oo fara badan. Saaxiibayaal, sheekadii xariif magaalo ee amiirka been abuurta ee $1 Million Nobody halkaas ayay ku dhammaatay, isagoo sannado badan ku jiray xabsi, dibna looma wasiya arag. Halka uu hore ugu noolaa nolol dahab iyo sawir been abuur ah oo Instagram lasoo dhigi jiray, markaan way soo dhammaatay. Sheekadana maanta halkaas ayay ku egtahay saaxiibayaal. Haddii aad ka heshay, fadlan muuqaalka like inoo saar. Until we meet, bye bye.